tani waxay ka mid tahay aayadaha Ilaahay iyo tusaalooyinka ugu talagalay insaanka in ay kuwana qaataan sida u jeedidba qofkaasi waxa uu isku dayayaa in uu bisadaasi dul mariyo kitaabka Quraanka Kariimka ah iyaduna waa ay ka meermeeraysaa oo hadba waxa ay maraysaa dhinac kale way doonaysaa in shaygaasi ay cunto mana doonayso in kitaabka Quraanka ay dul marto bal eeg haddii shay aan quraan ahayn meesha loo soo dhigo waxay maraysaa durbadiiba dushiisa iyadoo ku hakaraysa waliba halkaasi waxa inooga cad sida Ilaah subhanahu wa ta'ala uu sheegayba in quraankiisa uu asiga ilaashanayo waxa uu yiri Allah subhanahu wa ta'ala إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون